ورا لولا ما في عنتها وفي عنها الحمد لله الله يسلمك ورا عليك شاكة عادي أدبن في عنها قالوا ما شاء الله نمع الوجراية برارة الحمد لله الحمد لله ورئيسك عاجي مالنتي دويد عادي أدبن لوجها وواحد وذا أبني ضدكوا يلصق على المال والبيع كانوا مقلان dadku deha way iska ogyihiin laakiin haddana dadku way iska jecel yihiin inay wax u yara xaqiijiyo wax maaragtay helaan oo yiraahdaan alla wax hadla exactly ha hay walaalo waxaan ku weydiiyo arrin baa soo kordhay oo aynu ka maanta ka yara wada hadal in yar labadeena bayna ka yaabisay yeah bal arrinta nooga waran maanta social media anigu mashquul baan ka ahaayo hawlahayga iska badnaa inta badanna social media dadka aad u isticmaalamahay inaan wax geliyo mooyaane aad uguma maaragtay uma eego marka sheeko waxaa jirtay maanta ruuxday social media iyo inaan walaalkeena hoo laga eed sheeganayo la yiri gabadh buu xumeeyay si xun ula hadla u baahan arrinta maxaad ka ogtahay عادي waxay ahayd gabar yar oo inay shaqaysato rabtay macaliga hore uu sheegay waa la wada og yahay waa wax laga wada dhacsan yahay waan wax lagu wada jiifo mushamacan waxa u shaqeeyo oo hogaaminayo oo hore u wada inay yihiin gabdhaha waata haday weynta iyo haday yarta oo mas'uuliyad waxay saaran tahay gurigaan iyo beerkaan iyo ilmahan iyo waxbarashada waa gabdhaha ama hala qabaan ayaa la qabin haweenaa tahay yaraa gabar yara isxil qaantay oo wala aad ku yartahay aan telefoonkan ku wareystay gabadha oo ku weydiiyo oo shaqadii xitaa inaan la doono oo la raadiyo damcay markii hore waxa ii soo sheegtay oo ii soo dirtay war gabar Mareykan joogta asxaabna haye marka gabadhii yareen ay gashay page-ka ninka la yiraahdo Cabdirsaaq Atoosh oo wariyo Soomaaliyeed caan ah nin weyn oo dee anagu aan ku filaynay inuu dadkan xoogaa wax garadka u ku jiro waata Soomaaliyeed waa iska mid Soomaaliyeed mar walba haye marka page-kiisa gashay haye maxaa dhacay ku daabacay gabadhii in ay shaqo rabto oo waliba shaqada ay rabto ay tahay shaqo aad u yar oo basiir inay guri ka shaqeyso waa wax iyada awoodo oo karaankeeda inay tuugsanayso kuma soo qorin inay wax adayso kuma soo qorin inay jismigeeda gadanaysana kuma soo qor waxay ku soo qortay inay shaqo rabto shaqo guri ay rabto waa shaqada ugu fudud oo ugu lacag yar oo mar walba in la helo ay u badan tahay haye marka bayska intaas ku soo daabacday waxa u soo jawaabay Cabdirsaaq sida qoraalka aan ku aragnay asagoo ku canaananaya carabtu waxay yiraahdaan arrimahaas oo kale tanamur ama insi qofka xitaa marka leedahay waxaan waa mamnuuc waa qalad waxa ku fiican si احترام كجرا إن موقع أنت أقرش على كل شيء لكن قبل كذا يقول صار دقيقة قبل يسوى أنا نايو وكوكايين نايو له مرتب بها يجلسوا قرن بيتش كي جوحة سيدي أي وحنا سمايسيو كلام عي تنتي أما جفتي وحنا سمايسيو كلام قف وحنا سماينا أنا ما لهين وقف وحنا عشرفتي ونايتي ربعينه ما أعرف هاي أديك صدق شقيستو سمعني ترى الشقاء ما عن شهادة لكن وبين شقة عيبة شهادة صح هذا ما كان وضع كتمان شهادة صح شهادة رب والله القفة واحد أركيسا جامعة السود لما يقوليها جيفة وكله بقول دور مش خلينا إنه كنت دور مش خلينا إنه بقول كنت دور مش خلينا واحد صبرنا كوي كما فكران إن كم كواحد سوق لي كما فكران تذكر أوي كيف فكران حق إن كبعي مركن إنت وحنا سمي وحي إيه هنشبين أمن يجب أما دعوة أوكيستا قبل إيش كفلين أسرع كفلين ماله مش ما عدا ما فلين قفلين سمتشي هاي هو بدن وربعنا واحد سمايستان أو واحد قبصدان أو سيدا سكر أو قصص سمايستان أي أو يكون نقطة إنسانية هاي مركم محاد عي مركو سيدا أو قري وحكو سو قرتي قبل سيدا سيسا سبعنا هاي أو داير reer kayagaan rabaa inaan caawiyo qoraalka qofii soo diray reer kayagaan doonaya inaan caawiyo dhibaata waanu iska dhibaataysanahay waxaan jeclaan lahaa qofkii doonaya inaan shaqaystaan jeclaan lahaa qofkii doonaya in guriga looga shaqeeyo numberkaygu waa kaasay la soo xidhiidh intaasay tiri soo ma hayn marka intaasaa inankii gubtay oo ka xanaajisay
weliba wuxuu yidhi waxaas mar dambe haygaga soo qorin meeshayda waxaas mar dambe haygaga soo qorin marka cabdirasaaq maxay u dooratay marka inay halkaa kusoo qorato because adaan rabaa in lagaa maqlo cabdirasaaq waxaa lagu doortay waa wariye soomaaliyeed oo caan oo soomaaliya oo dhan ay hiil ku siisay inuu 1 milyan oo flow helo waa tahay meesha uu joogo asaga isma gaadsiin ayada iyo aniga iyo adigoo kale gaadsiin marka waa cabdirasaaq waa lagu kacay markaa asagu xitaa cabdirasaaq markii 1 milyan la gaadsiinayay codsi asagu oo soo gudbisaday ee sida gabadhaas ugu gudbisata asaga iyo caawin oo dadka ka soo dalbado yiri halla iyo caawin walle ay maan ogeyn masaasay ahayd xaqiiqatan media in badan uu ka hadlay meelo badan oo xaflado buugaag bandhig in badan uu ka hadlay in uu dhow yahay oo milyan ku dhow yahay oo rabo in milyan la gaarsiiyo dadka in badan uu ka codsaday waan ku jirtaa waa la arki karaa waa la fiirin karaa wow madaxa caawisa wasiirka arrimaha dibadda oo wixii ka hadlayo u hambalyeynaya markii la gaarsiiyey milyan oo haddana loogu sii daro marka waa lagu kacay oo waxay eegayso lafta jecli ludda jecli waxay yiraahdaan Soomaalidu qofka kaligiis inuu helo waa wax fol waa wax eebe waa waxaan diinta ogoleen waa waxaan dhaqanka ogoleen waa waxaan sharafta ogoleen xadiiska nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi gabar yar oo maskiin oo tirshaqaan qabaa waxay ahayd in ayada loo bilaabo si dadka kale oo dhan ay ugu dhiiradaan horseed noqoto asagana ay sharaf iyo wanaag iyo karaamo ay ugu noqoto halka sharafta iyo wanaag iyo karaamada uu iska rido aad iyo aad luule sheekadaasi waxay soo xusuusisay beri dhexdaas oo aan tegay Somaliland ayaa laba nin oo caan ah anigu hadda sheegi maaye ayaan waxaan u raacay dekada magaalada Berbera oo aan ballan ku lahaa marka waaba nala galbinayay laba baabuur oo Land Cruisers ah saddex baabuur oo annaguna baabuur dhaxan ku jirnay baabuur waa naga horeeyay baabuur kale waa naga dambeeyay anu waaba khajilayay oo runtii waxaan baa hoos baan eegayay because ilaahay wuxuu igu ogyahay ma jecli in meelaha darajooyinka iyo wax maaragtay wax ka dhow yihiin in la igu ararko ma jecli maaragtay dadka maaragtay galbiska iyo waa nacabahay ma garata marka dekadii markaan ku soo dhaweyn uunba baabuurkii naga horeeyay oo ciidamo saarnaayeen ayuun baa mar kaliya ka boodeen ciidamadii oo markaasaa dekada horteedii markaan u soo dhawaanay markaasaa labadii nin ila socdeena mar iyaguna baabuurkii xoog inta la joojiyay ka wada boodeen mar kaliya anu waxaan isleeyahay bismillaahi raxmaani raxiim na maxay arkeen waxa lagu cararayaa oo la arkay laba dumara oo laba keeriyoone ku sita shaah waxay iibinayeen midba waxa u saarnayd 3 tarmuusyadan la tuujiyo maaragtay saa loo tuujiyo ayay wateen laba gaari gacan bay wataan marka nimankii ciidamadaha markay arkeen nimankii madaxda soo socda ayay taw yiraahdeen oo naagihii bay keeriyoonihii intay qabteen bay xagga kale uga gidiyeen bakeeriyadii iyo tarmuustii xaggaas oo kale ku duuleen oo ku finineen ma garatay markaasay tiis tiraahda soo qaaday ka daba tagba qoriga xaggiisa dambe maaragtay weyn bay waxay iska dhigaan sida waxay ku dhufanayaan maaragtay naa soo idin maan odhan markaasuu nimankii madaxda ahaan waxay leeyihin naagahan imtaa jeer baan noo sheegnay naagahan soomaan odhan mar dambe ayaan halkan ku arkay war soomaan idinkaa ka mas-uula mar hore soomaan odhan mar dambe iman meesha intaa jeer baa loo sheegay dhagaada ka markaasay nimankii askarta ahaana nimanka iska iibinayaan oo qorigii bay naagihii saa ku leeyihin moogtahay markaasay saa leeyihiin oo baqayaan moogtahay in lagu dhufto ay ka baqaysa alla markaasay midi waxay tiri anigii markaa naxdin waa isku naxay inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun markaasa intaan isku naxay baan waxaan gaarigii kasoo booday aniguna war ilaahay ka baqa war gabdhaha ku dhufanina markaasuu kii mid baa nimankii intuu saa eegay mid dibaduu ka yimi oo keenaduu ka yimi oo xoogaa bal hadda hadalkayga u fiirso xoogaa waxaa ku jiray naxariis baa kusii harsanaydba ya because wuxuu ka yimi wadan saasaa naxariis uga harsanayd
oo isagu markay nimanku saa ku leeyihiin qoriga uu ka yara qabanaya ma garatay laakiin wuxuu leeyahay mar dambe ha u soo noqonina laakiin kan kale sanku ka hadlaya ninka kale ma garatay waa nin garaado badan ku toolan yihiin oo markaasay midi waxay tidhi markaan soo degay ba waxay tidhi intay saa kor eegtay anaa markaa waan soo kala dhexgal baa isla markaasuu mid intuu saa eegay bibiri dadkiinan dibadda ka yimaadee bururaya waad bururaysaanba markaasaan ku yidhi war heedhe ilaahay ka baqa markaasaan gabdhihii intaan iyo iyagii soo kala dhex galay markaasi waxay tidhi intay ilmadii saa isagaga duugtay garbasaarteedii mid way hadli kari weydo shoog baa ku dhacay midna intay garbasaarteedii ilmadii saa iskaga duugtay bay tidhi war aniguna 7 caruuro agoona baan haystaa iyaduna 5 caruuro aabahood waalan yahay bay haysataa markaasuu kii korneelka ahaa intuu saa weegay buu ku yidhi oo haddaad agoon haysatay hadday waalay annaba waa dhalay maxaa naga galay markaasaan intaan saa kor weegay baan nidhi la xawla walaa quwata illaa billah caliyul cadiim adigu mana waalid manaad dhimane waa adiga halkan soo qotonka weyn ma garatay ee quruxdaa iyo qotonkaas kaa muuqda ha ilaahay maad ka baqdid dadkiinan dibadaha ka yimaada intuu saa yeego iyo say yaa waxa weeyaan waad iska hadashaa waad bururaysaa meeshu nidaam baa jira nidaam iyo kala dambeyn haddaan nidaam iyo kala dambeyn helin waxba noo socon maayaan gaariga ku noqo igu yidhi howdhe gabdhihii baan iskala sii lugeeyay oo iskala sii socday oo iska sii waraystay oo adigu marka waxaan kuu sheegayaa hal deerto dibaddan aan joogno marka qof miskiina wax loo ururinayo oo ilaahay igu ogyahay yaa nin waliba wayse soo dhaafinaya waxaa laga yaabaa eedadii inay tahay qofka wax loo ururinaya ma garata habareertii inay tahay hadday doonto hooyadii may ahaato wuu isa soo dhaafinayaayo gabdhaha social mediaha xoogaa laga yaqiiqaano ee dhowr jeer la arkay iyagoo cid caawinaya baa loo soo diraya bal dadkaaga la wadaag bal adigu maxaa bal caawi waxaa sababaya wanaaga iyo horumarka iyo khayrka waxay moodaan ceeb hadda kan waxay ku nimankan waxay ku yiraahdaan nidaam baa jira ha iyo reer galbeedka de naxariistan iyo waxaan reer galbeedka nacnacda reer galbeedka waxaa jooga meeshaan dad dhintay laakiin qolofyadoodii ay joogaan iyo jismigooda iska socda damiirkii waxaa kaaga daran hadda ninkan hadda oo gabadhan arrintaas ku sameeyey arrinta uu sameeyo oo la yaab kale bixnaa hadda waxaan kaala hadlayo waxa waaye kibira ku jira soo hadda waxaad ii sheegtay nin ama eedadiis ama walaashiis loo aruurinayo oo ku soo xawilaayo ama arrinta u soo bandhigayo u dhiibayo gabdha kale oo isku ahayn oo laga yaabo xitaa waddanka inay sala joogo waxaa ku jirta inay ceeb tahay inuu qofkan wax u qabto ama wax la qabto ceeb inay tahay hadda ninkan tusaale wuxuu sameeyey cabdirasaaq toosh arrin aad aniga iga yaabisoo sameeyey oo aniga aan aad ola yaabay waana majority wax ay ka siman yihiin nimanka soomaalida intooda badan ilaa man raxima rabbii maahan waxay ahayd wuxuu soo duuba cod gabadhii ay leedahay waa baxdilaan labaad laakiin dadku ma fahmin wogta baxdilaan labaad waa yes waa kursi waa meelka dhac cod gabadhii leedahay oo soo duubay ninkii dembiga sameeyey waa asaga ninkii gabadha ku qaldan waa asaga ninkii akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka wanaagsan ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ku yaala ku adgudba waa asaga gabadhii codkeedii uu soo duubay inuu yahay in kala aan dadnaba aqaan aan gabadha walaalaha marka codka gabadha muxuu leeyahay marka wuxuu leeyahay wuxuu soo duubay in kooban gabadh hadlayso soo duubay wadina ay tahay in kala aan ma aqaan Allahu a'lam laakiin gabadh la haysa walaalkay Cabdirasaaq Catoosh waa mahadsan tahay xiriirka ay la soo xiriirtay iyo shaqada aad ii ballan qaaday intaas ilaa ajir mas'al adiga it sounds fishy waa garana waa qab gabdhe laakiin adiga aawo dadnimadaad aawo damiirkaad aawo geesinimadaad aawo inaad dadka soo hor istaagto waxaa xubin male waa fulinimo marka isagu maba hadlinba maanta waa ku dhiira yaqaanaa nimanka Soomaaliyeed laakiin wanaaga wadno uma hayaan waa ceeb la tahay wuxuu u maleeyaa inuu hoos u dhacay laakiin ma yaqaanaa lama barin cudurda xadiiska nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam kullu ibn aadam khata wa khayru khata'un at-tawwabun
qofka inuu cudur daarto cudurdaarka maxaa u taqaanay dowladaha adduunka ugu waaweyn adinka jooga Mareykanka Yurub banaanka u soo baxaan shir jaraa'iday qaataan ayadoo kaba lagu tuurayo oo yaanyo lagu tuurayo oo kuma lagu tuurayo ee dadka ka cudur daarta iska jirtaan iska tag asaga waxa aan ka rabo waxay ahayd sida aan rabo cudurdaarka dad dhabiyo uriyo oo jiro inuu banaanka ku soo baxo hatta inuu cod soo duubo hatta inuu mutuso gabadha codkeedii oo duubay oo cudurdaarkiis ilaa hadda ma hayo codaanan haynin qoraalaanan haynin waxay ku tusaysaa khaladkii ninkaas uu galay inuu ku sii jiro weli oo madaxtaag iyo kibir iyo isla weyni oo heerkaas marsiinayo anigu waxaan u aqaanaa tawaaqic qofka inuu sameeyo tanaasul inuu sameeyo inuu gabadha ka cudur daarto inuu ummaddeena ka cudur daarto inuu walaalayaal khaladkaas waa iga dhaxay iga raadaan ma samayn karo ma arkaysid nin naagtiisa ama hooyadiis ama walaashi ama gabadh islaameed mufta ka cudur daarto meeqay annaga wax lagu sameeyo ما أود إيه لا تسيرنا وقعد الطارد سبحان الله سيرنا كأرت عن معرفة ما عن وصف واحد حديث وعي الجنة تحت أقدام الأمهات جنة أعرف حتى هو استير ناكتر سيرنا عذر دارا وينسى سودين بيجمع عليك سوق ما على قلبك سوق ما قلت سونيتي قبل شيء سوق الله قف وعقود ديسان لهاد ونربط نقلها ودينا شقا ميشاس كهل وصوب قران لهاد وكل يرين لهاد تبقوا مواد عن العلم تذكر ما على الرمى إلا قلت دقال التهريب إلا قلت دقال التوكسية إلا قلت دقال التوغن لماذا شقل والشرف شقل عد والبؤ وأي شقا أبوه نوصل ليا واسع أنت مريض كوكوش هي يجيك دبعت سيء شيء وكان هذا كوري لا تقول مريض كان أو أي شيء هاي جامعة كبحر شقوة. ها exactly وين. بارك الله فيك قطوات السيليكون تجمعش تكنولوجيا ده والشركات دم إيش كفيسي. ويا فافي مجتمع أمريكا كتبت كتير كتاعنا وبارك الله تجمع تصورك قاعدين تويتر إيميل والبقية. أبا لوسنا. أبا لوسنا. أسوي اسمه توسي. marka annaga shacabkeeni markii ay meesha ku soo qoteen waa la arki daa ana arki laha ada arki laha dib walba arki leh maxay dhibaysaa waxa adigana wax ku dhibay hadda waxaaba markhaati ah hadda adigu ganacsi baad leedahay dadkaad shaqaalaysiisaa shaqaalaad ba u baahnayd waad baraadiso shaqada waad siin lahayd haddaad ku arki lahayd meesha ka horeyaan ka wacay qoraalka aan arkay wixii waa helay codkeedii duubana aniga ahaan gabadha isku بلاك ماشي أي كشخص وقدر يصير أنا وأقارنا وضدك أنا أصحاب أنا أصحي عنها الجوجا حتى وأنا رأينا تبكي سوق قال واحد يصير واحد يقبل يسأل بلاك أنا أركي لها بقول لها القفة كلو شقوا بعهم بأرك شغالوا بعهم بأرك لها بالمحية ليس محية ليس شقوا قبل الضربتين أصلا وشقوا لو وهو يدري وما له أنا أقول بعهم برجي أقول بعهم شخص جي أقول بعهم $100 $40 حتى شقة لعب بدل ما بيجي لو قال يا عم بقى شقة كوريا واتس واحد أي إنسان وشقة بدل ولو بقى هنا بداية عندنا مجتمع واحد كتير لحد ما بالبيئة الصومالية صدم لا أفرتنا يشوف واحد بدل وقف نفسه واحد بس كبلنا والنادر واحد لو بداية هنكلم هاي حتى أي بيئة كونهم عن هذا من هبين أنا أقرأ ما هو صنايع لك شيك على قد قلب كبنان كاي شغال عنده هو بيقلب إنسان هذا واحد كلو كجرا وضن كأنه قال عن بقى هذا أنا وقت جوا أنت أقول يوم تشو هل أرينا جفت قبض ناسو شقوة هي $700 هدي أتجي لها ضد كمان لذا ملها قار هيستا وولي وحيابها لو بدني هاي وقلت ما كان كشيء ما يعني هذا أنت دولته كانت وأنا إسكوا ذا أوجي وكانت شوي كلاجة هلا كانت وأبلي هاي جبتنا وإن هوتيل جيجا محك وضع ما يقول علي what do you mean محك وضع مركز اشتغل جبت الدولة توقف شغل السنين هايدو وحلبي كمية لسميها قار نظامية قار ما وضن كدولة كتير تصوم شركة جونين وكتير وشقدتك شقاليس هاي على حسب طلبوا والسلسلة اللي بدأي هلاك السلسلة اللي بدأي يعني مقالة ولي بقى أنا لبقى فوق كم إذا نوعا
marka qofka shaqo gabadhii shaqa haday doonato waxa leeyahay hotel isugu kan habeen iyo labo haye iyo wax ka badan markaas kadib inaad shaqo heshid waa laga yaabaa oo hotelka haday isugu timaadaan muqaabil gacmo wada jiray wax gacmo isdhaafaan نعم شكانسي ويه والله شكانسنا يا مكة شكانسي ما أنا وحواي الطريقة إلى سيحم يا عمل قبل أقول يا جيران وإلى الشغل بدل تاجبركم يعني واحد قبر إلى هيك بدأ بالبادية ما هن أنت بدأ مقابل نوع عسل وشقيس إنا الله وإنا إليه راجعون الله يا الله يا وحواي قبل واحد أركيس فوق يتوسع لبي يتوان كمقرب نما تقبيستان لبستان سي u xaragoonayaan hada ajaabis oo qof oo ku sii socda filada taqa kama jirto xilliga maxay doonayaan ay ka abeeyo ma joog waa hotel oo kala waa نعم ده wax kalaan jirin dan ba u geenaysa wax kalaan jiro waxa arkaysaa nimanka hadda mootooyinkooda in masajena anu shakhsigayga aan arkay anoo lacagteeda la baxaayo oo fuulaayo oo leeyahay mootada lacagteeda iska bixinaa oo leeyahay iska daa lacagtooda ku daynayay soo bixi hotelkaana 2 saac soo joogeena iyo 1 saac soo joogo waa khalad xumo ma lacagtii mootada la rabaa in lagu fuulo in lagu daayo oo maaragtay marka boqolaal gabdhood waxa jirta duufaysan oo dan haysto oo rabta meel inay gaarto ama dan u socota ama shaqo u socota ama wax u socota inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun baahidu shaqo la'aantu waxyaabaha ay fududayso waxa ka mid ah waa qaabkaas dhaqan xumadaas oo kaleento oo gabadhii in luuqa lala gala tuuganimo kale fududaynaysa tahriib oo kale fududaynaysa tuugsi oo kale fududaynaysa laakiin haddii mujtamacu isku xirmo la istaaga in la daboolo baahida shaqo la'aanta cidku mashquul yahay ma la qof walba mustakafi ahaan la wuxuu shaqaysto oo qabsanayo meel mad taas waxa waa waxyaabaha gabdhaha aan loogu ogolayn inay shaqeeyaan because waxa la rabaa cagta hoosteeda inay ku jirto xorriyadaadi baa la rabaa in laga qaado because shaqadu waa xorriyad shaqadu waa milgo iyo sharaf ya marka waa istiqlaal shaqadu waxa la rabaa ikhtiyaarka in laga qaado si aad raqiis ugu ahaatid cheapka on demand ka aad ahaatid ya oo anytime lagu baahdo lagu heli karo waa sababta maxaad ka filanaysaa lulay cuqaasheeni iyo shiikhadeeni ya iyo dadkii ku dhiirigelin lahaa sharafta iyo milgada gabdhuhu inay ilaashadaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada inay xoogooda iyo muruqooda xalaasha isticmaalaan ayaa ku dhiirigelinaya ya inay hooseeyaan oo mar walba cagta hoosteeda ku jiraan oo aanay wax baran oo aanay waxba noqonin annaga culimadeena markay hadlayaan oo ay hadda ka hadlayaan jimca hadda waa soo socota waxyaabaha asbuuca dhacay oo bulshada saameeyay raba jimca walba in looga hadlaa hadda wadanka ka imsaas oo asbuuc walba wixii wadanka ku soo kordhay masaajidada looga hadlaa khudbada looga hadlaa waxa looga hadlaa badeena annaga inta badan looga hadlaa qabiilka ma masaajidka ilaahay masaajidka ilaahay hadda ilaahay suusatiin waxaan ku eedeynay culimada Soomaaliyeed nin sheekh oo ahaa oo la yaqaan wixii ka dhaxdhaayay microphone baytullah al-haram oo si ixtiraamkiisa ku hada ilaahinka waa ilaahin Allah sheegay qol jeer ku celinayo microphone you yeeray you sida yeeray you yeeray ilaahinka waxay ahayd arrin hadda ka hor qabsatay akhlaaqiyada masaajidka loo galo oo looga hadlay jirto gabar yar oo qaawan oo leebtaxin liida tagtay ee wuxuu haystay laakiin dhibaatada de kolay ma qaawanayna maxaa laga wadaa surwaal bay sidatay ma I don't think inay qaawantay surwaalka qaawani loo yaqaan ma garanayo wallahi kolay markii uu anigu arunta qaawanaan oo jirkeedu muuqda ma ahayn biyaha miyay gasho ma garanayo almiin gabar yar oo leebta liida joogta markaad ku mashquulaysa wax ka waaweyn meesha yahay نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام وها قلت للجبار تبي كده حيقول يا وسحابيه وعن صدق جارو اللي يرقص أصلا وسربين اللي تلاقي أنت وقع الدم صح إن أدوان سوى عن السنة ولا هاي إن أسكتنا في إلهي بحسابنا إلهي وحي لده كوينا ونحرست بدن بنشعلها ونحرست مروة البوناق ينحرستها مساجد كيسا عطاو الصوت كادي الوشوة يشوفوا
markaasuu كعلينا صحابة كعليا يبرو الإجري جوجية حتى ما يستوى كدران نين كان ريد بادية أو مساج وكادنا يبقى سوق على هذيك هاي الكلام وبيت كإلهي ومدينة المنورة ومساجد كالنبي أوكشام وقل الصحابة الجيسا كفر نين كان محوسني على كاسو قيلك الصوت الله أدين لي الزنا سنا إيه أمر إيه فسر إنا بالله يستان ربع إنا مقالة كوريغان ربع مركاسي انت سيكلا صوت بحيني ماذا يقول رسولك إلهي محول صدونا أفكا لي أقول مقانا مكاسو داي إيداف كالي so good be أسو سعودتك لسو تحمرنا أسو سنها لإي أمر حتى جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هرت النبي هرتي سؤال فريستي مركاسو النبي هرتي صلى الله عليه وسلم ويري أترضى لأمك وإذا ما أكشها إلا قسي يستفى مي بلاشا قبل قال سوء أخرنا هاي ومية ودهاي ووحو يري مرالك ما إيه وحاسونا مركاسو يردتكونا رالك ما وأدعي نكاس وحو كشيكين أيام نبقى عليه الصلاة والسلام وقالي وحا أدونك وجعلها أيضا تهزينة وأبقى شيء وحا أقول نعبها أيضا تهزينة وحا كونا ما أنت تدكوا كل عايان وبشر وبنآل قومون طلع ديدين إيه صاقلا دينتو شرعي قاطع لكن سوى ناكسن نحريس كجرتو وأخلاق كجرتو أداب كجرتو الدين والنصيحة وحديث كالنبي دقال ماها عين ماها أفلقات ماها دبات ماها أخلاق ماها حاسن نماذا الصومالي كجرتو على إسكتها ودباتوها على الإسكتها ودينتو يلقى بين أبوان ودينتو والنصيحة يقولتها هذه أدونك أنا قلتها مسلمين يأدونك قالي إسلام ودنك أدواد الجوكتي أو ترام أو كل أخلينا دينتو مسيحي قلتها واحد بدني قبتي أي كهيسة وأجي والله بس على وكل سنة ومسلمين أي خبتي وهرمكوا جالس والدين أي خبتي وحيابها كياني إنا يدتكو دنتا جود وذا بريتاران حتى حدانا إسشعلين وحويا قف بقفكو كهريو البابك كقبنيا قف بقفكو مسخوش ugu horeeyay buu ka sii nadiifinaya ma garatay مسخوش uu galaya uu soo isticmaalaya uu ka sii tirtiraya ka sii hagaajinaya qofka ka dambeeya ma garatay qashinka uu soo hormaro ayuu qof walba hore u sii qaadaya hadii qola tamar yar ama minority la isugu tago حتى كوا كن عبا كبربر استاجي ورنايا هدي ما أنت قف كاس أما غير كاس دنتو حد مارت الواحد قد بيجا أنا جنا بريتو ولا واحد قد بيجا وحنا على إنه ننكي خير كل واحد يسوق ويساعد يقولنا ما قرت مركب حويان أن قفكو مركب دباتوين كان حد حنون كان كورونا فيروس كمال كستكشرة ضدكو الباب بدأ يسكو قراعيان درسكي وحي مرة والبحي بسنة يعني لو عشوا حدانا أركي قفكي درسكو ذاها الباب كي كسو قراعيان وحي أغانيان قفكي وعافمال قبيين كله محانكو كينابي أورانيان عنتدي بي الباب كوسو لغيان هدو قفكي حنون سنة ما قرتي داردي بي عوسكي كقوينيان ما قرتي عوسكي بي كقوينيان قفكو هدو عرور لي عرورتي بي وكحينيان وأمده وذا تشير وحوال بوقة بانيسا ما قرت ودنت جود وذا إلى الناس لولي وحن كسو جبيننا وحاسودن كسو جبيننا كل فيلم عند 100 لو نشري وحاسودن وانا منك وذا isku sheegaya waana manka microphone ka inta sita waana manka ilaahay quraankiisi ku soo koobay gabadhu dharkay xiran tahay iyo naaga inay gabdhihi aflagaadeen inay gabdhihi caayaan ma garatay inay qabiil iyo qashin intaas waxa weeyaan iyaga fidmado dhan iyaday ka socotaa ilaahay ka biqimayaan haday nimanka waanin lahaayeen oo ku adimi lahaayeen maalin walba ku adimi lahaayeen oo lahayn sida isu dhaama war ilaahay ka baqa war xishooda war rag noqda war iska wuxuu qabso hadaydan xataa shaqo kale haysan iskii wuxuu qabsada war wadan qurux badan baa ilaahay idisiiyay wadankiina qurxista inta nin kale wadankiisa nin kale oo shaqaystay oo habeen iyo maalin soo jeeda oo reerkiisa xafidayaal nimankan la joogna dad ogtay familygooda maalinta uu ilmo yar dhalo ayuu wax walba dhigaya ma garatay nolol kale oo dhan ba faruhu ka qaadaya inanka iyo inan hadii laba ilaahay siiyo labadaas xoogiisa iyo xidaan xidkiisaba agdhigaya waxaad arkaysaa isagii ilmaha yar isaga xambaaraya oo xaaskiisi markay hal ilma isu dhalaan isagii baa xambaaraya ama laabtu ku xambaarsan yahay ama dhabarku ku xambaarsan yahay iyadina gacantu haysta ma garatay hadday laba caruur leeyihiin iyadna kii kale daadihinaysa isna kii yaraaba xambaarsan yahay waa rijaal
kuwaas xadhu tariya gaalka xuna ilaahay qon ma gaalka xuna war ilaahay idin ma baahna xaasaskiina iyo reerihiina idin baahan ilaahay baad ku wacd furaysaan saa ilaahay hadalkiisii iyo warkiisii iyo amarkiisii baad diideen oo waxa xaqirteen abuurtiisii baa xaqirteen hadday dumar yihiin hadday caruur yihiin hadday qabiilo laga tiro badan yihiin abuurtiisii baa xaqirteen oo ilaahay baa kasoo horjeesateen oo uska iyo qarmuun oo waxaa noqoteen dad aan sharaf lahayn oo dhiidhiyeyn oo qashinka iyo qurunka iska reebeen alla wiswis alla ma wiswisa nin soomaaliyeed ma wiswisa halkaasaynu kaga tegaynaa luulaye oo inagu dheeraatay saddex baaqoo yaryar culimada soomaaliyeed baaqaa u diraya waxa waaye waxa dhexdiina ku jira meel iska dhigtaan mujtamacaan ayaa wuxuu idinka rabaa hogaamin iyo wacyigelin iyo wixii ilaahay subxaana watacaala uu idin soo dhigmaday oo la inkaga tagay culimada waxaa la yidhi waa warasata ambiyaa adinkaa la inka rabaa adinkaa gabtay kaarintiiniya bliis waxaan idinka codsanaynaa inaad dadkan u sheegtaan qala madaxa ka qaloo amijaha kama hagaagtaan la yiri u sheega in hoos wax laga soo dhiso aas hoosanaayaha iyo ilmaha lasoo caawiyo oo kor loo soo qaado nin walba mas-uuliyaddiisa qaato taasaan ka codsanaa oo adinku aad rag iska dhigtaan culimada soomaaliyeed niman rage inaad iska dhigtaan adin baaqa labaad waxa waaye gabdhaha soomaaliyeed u diraayo wuxuu ku aadan yahay ninka markaad wax sheegtaan run sheeg waa ceeb sheegaytu soomaalidu horay ee u sheegtay oo waxaan haddaad wax sheegtaan wax idin jeclaanayo iyo wax warkinka maqlaaya male waa la dagaalaa taftaa la qabsana wax walbaa laisa dulqaadkeeda waa inaad yeeshaan midda aad isku bargaraaminaysiinna waa inay ahaataa meesha bugta iyo fartaa is ogo ninkan in haysta oo ka doodaya waxaan jira waa asaga ninkii aad haysateen oo aad farta ku taagteen ood kalarka soo qabsateen waa ninka in haysto ay xaalu iska kiib celinayo ma rabo qurunkiisa inuu qoshtou rabaa ninka wanaagsan oo ceebka saliimka oo dhibaatada dareemaya idin lama hadla ama waa idin dhiirigeliya ama waa idinka aamusan marka gabar walba waxaan leeyahay ninka ku dhegan ee iska kaa celinaya ee kula doodaya ee ku caayaya ee mar kasta ku haysta waa ninka maanta sameeyo waa isagii waa laftiisii intaas inaad fahantaan rabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا خير بدن بكون رجينيا جديك وضعي هيك على نبضي ما شاء الله وقف عجيبة حكمة أردن باكودوغن إله النودة حفظ الله خير برواقي بسكوبنا نبضي